الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلمة كوبان وكسابسا صوم كمالك عاشوراء تاسوعا السنة كان عصوبة هجرية كنا فربغ ولا فرتني يلا السنة كان يوم تاسوعا سقالان حكسو هذه جمعو كسو هذه maalinka caashuuraana sabti buu ku soo aadayaa soonka sunnada maalinku sabtida markuu sabti ku soo aadana iyadana masalo kalaa ka dhalata oo ma la soomi karaa su-aasheeduna ay badataa kelmaddeennu marka inahaas ay ku saabsan tahay si kooban maadaama marar badanna aan ka soo hadalnay dad kaleo culimmada fara badanna ay ka hadleen inta u badanna hadalkeennu xasuusin uu yahay waxaan rabaa inaan kala qaado afar qodob inaan ka dhigo qodobka koowaad maalinka caashuuraa iyo tobnaad soonkeeda qodobka labaadna maalinka sagaalaad soonkiisaoo taasuca ah qodobka saddexaad hadday taasuca jumco ku aaday ma la soomi karaa qodobka afraadna hadday caashuuraa sabti ku aaday maxaa la samaynayaa ama caashuuraa maalinka tobnaad ee bisha muxaram ama soomaalidu zaka ay u taqaanay sanadka hijriga iyo islaamiga bisha koobaad ah ashhurul xurumkii bilihii xurmada lahaa isku xigay bisha saddexaadna ah ee guud ahaanna soonkeedu soon sunnaa ugu fadli badnaa maalinka tobnaad si gaar ahaaneed nabigeena waxaa ka sugan calayh isalaatu wassalaam axaadiid aan laba ka sheegayno xadiidka koowaad xadiidka cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma fii saxiixi albukhaari wuxuu leeyay ma arag nabiga calayh isalaatu wassalaam oo soomaya maalin uu maalmaha kale ka fadilayo oo mudnaan gaara ka siinayo maalintan tobnaad ee caashuuro maahane iyo biluu gaar uga fadilayo oo kala qiimo badan bilaha kale bisha ramadaan maahane maanaa bilahana bisha ramadaan baa ula qiimo badnayd maalmahana soonka sunnada yowmu caashuuraa baa ula qiimo badnaa nabiga sala alla alay wasalam oo uu ka fadili jiray oo kala fiicnayd maalmaha kale ee soomka loo soomo dabcan maalmaha kale ee soonka waxay kaga duwan tahay intaan bisha ramadaan waajib laga dhigin iyadaa waajib ahayd markii bisha ramadaan waajib noqotay baa waajibkii laga daayey oo ay sunno u soo wareegtay xukunkeedu sunno noqday xadiidka labaad xadiidka abi qataada fii saxiixi muslim uu leeyay nabigu alay slat salaam axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah soonka maalinkaa la soomay sanadkii ka horreeyey ilaahay dembigeeda inuu ku dhaafo ayaan rajaynayaa marka waa maalin la soomo oo sunno ah dunuubtii u badan ku yaryaraa ama xaqullaahi ahaana ay raaci karaan ee sanadka tegey ah in lagu dhaafo haddaa asbaabta makfirada dunuub badan oon gallay sanad badan lagu dhaafo maalinka caashuuraa inaan soonnaa ka mida labada xadiid baa intaan garanay ugu saxiixsan fadliga yowmu caashuuraa ay leedahay yowmu caashuuraa waa maalinka tobnaad marka oo hadda sabtida ku aadan sabtidaasoo ku aadan iyada lafteedu saan filayo 29 bishan aan ku jirre agas ama 8 2020 maalinka taasucaa mina taasica weeyo sagaalaad oo maalinka jumcada ee ka horreeyay 28 bishan agas ah iyadana in la soomaayey marka laga soo tago inay muxaram ka mid tahay muxaram soomkeeduna soom sunnaa ugu fadli badan yahay marka laga soo tago si gaaruu nabigu calay salaam u sheegay maalinka sagaalaad inuu soomi doono markaasuu nabiga alay salaam waxaa lagu yidhi loo sheegay wakhtigii geeridiisu soo dhoweyd sala alla alay salam ee caashuurana la soomanaa
inay ahlu kitaabka qaar sideenoo kala sooma jiraan. nabiguna aakhirkiisi wuxuu jeclaa ahlu kitaabka inuu khilaafo. markaas wuxuu yihi lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic, haddaan sanadka soo socdo nolol ku gaadho oo ilahi subxana wa tacaala nabad gaarsiiyo, 9 waan soomayaa. waxaa looga jeedaa bey maca alcaashir, 9 waan soomaya. 10 waaban soomaaye, 9 waan soomayaa. nabig alai slam haddaba inuu ku soomayu ku talagalay, hadalkiisana waxaa laga gartay inay fiican tahay maalinka 9aadna in lala soomo maalinka 10aad, oy 2 maalmood oo israacay noqdaan. laakiin nabigu ma noolaan calayhi salaatu wasalaam oo sanadkii dambe bishii muxaram ma gaadhin, oo sanadkaaba muxaramtii uu la soomana caashuura. safar markii bishii dhammaatay, safarna dhammaatay, bishii mawlid ama rabiic alawal ayuu geeriyooday sala allahu alayh waalihi wasalam. haddaba hadalkaa uu inooga tegay ee dardaarankaana maalinka 9aad in la soomo inay fiican tahay oo 10 lagu daro ayaynu ka faa'iidaysanay. taasina waa maalinka taasuucaah ee 9aad soonkeeda. sababta soonkaa dhan keentay caashuura kadibna taasuuca loogu darayaay waa maalinka ilaahay fircawnna halaagay, nabi muuse calayhi salaam iyo dadkii mu'miniinta ahaa ee reer bani israa'iilla ilaahay badbaadiyey. maalinkii biyaha badda ay lagu qarqiyey weeye. sidaas baa nabig alay slam markuu madiinadii yuhuuddu way soomi jireen, qurayshna jaahiliye way soomi jirtay. xadiidka ibnu cabaas iyo caaishaba ay sheegayaan sixaaxa ku yilay. nabigu markuu madiina yimid ee yuhuudoo soomikisa arkay, ahlu kitaabna kutubta hore wax ka og ay ahaayeen, ayuu weydiiyey sababta. waxay u sheegeen waa maalinkaas nabi muuse soomay, shukri ilaahay ugu shukrinayo. annaguna waan soomaynaa ku dayasho. ambiyadu maadaama ay isku diin ahaayeen, nabiguna alay slam awalkii islaamka ay mushrikiinta ay isu hayeen, ahlu kitaabka muwaafaqadooda uu jeclaa, wuxuu yihi naxnu axaqu bimuusa minkum, muuse annagaa idinka mudan, idinka dhow, waayo annagaa diin xaqa oo kii ambiyada ilaahay raalli ka haysana. uu soomay nabigu, dadkana hala soomuu yidhi. amarkaa nabiguna wuxuu soo baxay dadka qaarkii gaadhay xilli maalinnimaa. dadkiina waxaa lagu yidhi qofkii isagoo sooman waa beriista ha dhammaystiro amaan waxba cunin, qofkii maalinta qaybteedii hore wax cunayna inta dambe ha soomanaado is waxba cunin. sababta loo soomay saasay ahayd. nabiguna u soomay sala allahu alayh ali wasalam shukran lilaahi, ilahay ugu shukrinayiyo ilaahay suma dhihin qur-aankiisa fii suurati alancaam, ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahum iqtadih. ambiyada hore marka laga soo sheekeeyey, kuwa waa kuwa ilaahay hanuuniyey, hanuunkoodu ku dayo. hanuunkii ambiyada hore uu ku dayanayey buu ka mid ahaa. innagana waxaa lihin laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. innaga nabigeenaan kaga dayanaynaa sala allahu alayh alih wasalam. intaasi waa soomkii caashuuraa iyo soomkii taasuucaa iyo sababta caashuuraa loo soomayo. qodobka saddexaadi, taasuuca waxay ku soo aaday sanadkan ku soo aadaysaa jumca. jumcadan baa la soomi karaa haa, gaar ahaan munaasabadan oo kale oo maalin ka dambeeyo caashuura lagu darayo. fii saxiix albukhaari wa muslim min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu ardaa, nabiga alay slam inuu yihi jumcada qofna yuusan soomin inuu kula soomo maalin ka horeeya ama maalin ka dambeeya ma ahane. maalin ka horeeya waa khamiis haddaad ku darto, maalin ka dambeeyana waa haddaad sabti ku darayso. fasiraadeedana nabigaa sii fasiray oo xadiidkii juwayriya bukhaari wariyey, umulmuminiin juwayriya bint alxaaris radi allahu canha ardaaha, buu nabigu maalin jumca iyadoo sooman u yimid sala allahu alayh wasalam. markaasuu wuxuu yidhi waan soomanahay. markay tihi shalay ma soontay? waxay tihi maya. beri inaad soonta ma rabtaa, ma ku tala gashan tahay? waxay tihi maya. haddaba afur buu yidhi, yowman qablahu wa yowman bacdahu dii wey. mar haddii sabtidii caashuuro tahay oo lala soomayo, jumcada in la soomo ishkaal iyo mugdi kuma jiro. taasina waa qodobkii saddexaad. qodobka afraad oo hadalkiisu ugu badan yahay, oo maalinka sabtida caashuuro hadduu ku soo aado iyo munaasabadaha lamidka sida yowmu carafa iyo, ma la soomi karaa? jawaabtu waa haa.
laakiin su-aasha waxaa keenay xadiidka cabdillaahi bni busr uu nabiga ka warinay sal slam isaga ha ka wariyo ama ukhtuhu samaa ha ka wariyo ama cid kale ha ka wariye uu leeyahay nabigaa yidhi sala allah alay slam oranaya xadidka oranaya nabigaa yidhi maalinka sabtida ha soomina wixii waajibka idinku ahaa ma ahane haddii geed cinaba inaad ruugtood muudmuudsatay iyo maydhaxdii mooye wax kale aada weydo samee hadalka waxaad ka fahamtay sunno lamaba soomi karaba ama waxa lagu daro ama yaan lagu darin halkaas xadiidkaasi ma sugan yahay jawaabta saxda waa maya xadiidkaasi ma sugna aimada islaamkuna intooda badan inuunan sugnayn bay u badan yihiin minhum ibnu shahaab الzuhri wa abu camrin alawsaaci wa minhum alimaamu malik bni anas oo dhihi jiray hada kadibun been weeye wa minhum imaamu الnasaa'i hada xadiiثu muطaribun yiri wa minhum raggii mutaakhiriinta rag badan baa raggi hore waxaa ka mid ah alimaamu طaxaawi oo xadiis shaada weeye yire wa minhum waxaa ka mid a mutaakhiriinta ibn اlqayim iyo ibn xajar alcasqalaani iyo wa min mucaasiriintii sheekh ibni baaz iyo rag kaloo badan baa ka mid a sax way jiraan culimo tasiixisay ama xasan ka dhigtay sida xaakim iyo tirmidi iyo rag mutasaahiliinta lagu yaqiinay mucaasiriintana sheekh naasirdiin albani raximah اllahu tacaala xadiidkaasi cilada tadciifintiisa idiraabka lagu sheegay waa isbaraanbaray min cadiid cabdillahi bni busrin baa wujuuh badan lagu wariyey ilaa xaafid ibn xajar fi talkhiis alxabiir uu yidhaahdo hal xadiid oo hal dariiq leh oo intaasoo haddana weji yeeshahay si fiican inaan loo xifdiyin baa laga garanaya laakiin jamhuur ahli اlcilmi ahimat alxadiidki waxay ku daciifiyeen taas ma aha xadiidku saxiix iyo xasan markuu noqonayo shuruud 5 ah buu leeyahay qayb baa xasanka la khafiifiyaa shuruuddaa 5taa 2 ka midihi waa inuusan shaadna ahayn ciladna aanay gelin ciladda iyo shuduudku sanadkana way galaan matnigana way galaan xadiidkan matnigiisa baa shuduud iyo cilaba leh oo wuxuu ka hor imanayaa nusuus aad u fara badan oo intooda badan ka saxiixsan yihiin si loola jamciyana in takalluf iyo waxoogay isqardadixin la mara maahane uusan lafdiga iyo ereyga xadiidku aqbalaynin ilaa ma fturida calaykum waajibka maahane haddii aan la yidhaahdo aan wax lagu darin aan dhahno dee farad aan wax lagu darin oon qada ahayn ma jiro faradka ramadaanka hadduu farad yahayna yowmu sabti keliya in la soomaba dhici karto oo hadday iyadu bilow tahayna wuu ka dambeeyaa hadday iyadu ugu dambaysana wuu ka horeeyey hadday dhexda ku jirtana xagga iyo xaggaba soom faradaa ka ah oo keligii xadiidku ma aqbalay lafdigiisu sa darteed xadiidkani xadiid aad u fara badan buu ka hor imanayaa qaacidadii tasiixulxadiidka ahaydna waxay ahayd xadiidku hadduu usuusha ka hor yimaado oo nusuustoona aan lala jamcin karin oo ka hor yimaado isaga keliga ah bay tusaysaa arrintaasi inuun xadiid sugan ahayn waana taas sababta aimo badan u yidhaahdeen u tilmaameen xadiidkan hala qaata haddii yihahdo xadiid kale farabadnayd xaggee la geenaya xadiidha fara badan kuwa si guud uga hor xatman ka hor imanaya iyo kuwa sabtida lafteeda kaga hor imanaya isugu jiraan kuwa sida guud uga hor imanayaay xadiidkii saxiixeynka cabdillahi bn camr alcaas baa ka mid a uu lahaa waan soomi karaa nabigu markii dambe wuxuu ku yidhi sum yowman wa aftir yowman maalinna soon maalinna afur kafa fadli badan baan awooda wax ka fadli badan ma jiro waana ku nabigu ku siyaamu daawuud kaana yasuumu yowma yuftiru yowman haddaad maalinna soonto maalinna afurto usbuucan hadday jumciya axad ku aadaan usbuuca dambe khamiis iyo sabti bay ku aadayaan xatman qasab xadiidkaasoo ka saxiixsan oo nabigu afdalu siyaam uu ku tilmaamay uu ka hor imanaya wuxuu ka hor imanayaa xadiidka hadda aynu soo sheegnay ee jumca iyo sabti in la wada soomo abu hureyre iyo juwayriyu jumcada in la soomo yowman qablahu wa yowman bacdahu aw yowman bacdahu maalin ka dambeeya haddii lala soomayo jumcada waa la soomi karaa maalin ka dambeeyaan sabti ahayn waa maalinkee ma jiro wuxuu ka hor imanayaa axaadiidta tilmaamaysa man saama xadiidka abi ayuub ee muslim man saama ramadaana ثuma atbacahu 6 min shawaal 6 shawaal ka mida raaciya
lixda shawaal ka midihii lagama soo reebin hadduu mid sabtiga ku soo aado wuxuu ka hor imanayaa ayaamulbiidka in la soomo oo 13 iyo 14 iyo 15 qasab waxaa bilaha qaarkood inay sabtidu soo gelayso lama dhihin sabti haddii ku soo aado yaan la soomin si gaara xadiidka jumcadu sabtidiibu u taabanaya sabtida waxaa kaloo taabanaya sida guud horta waxaa ka mid xadiidka Caaisha ibn Cabbaas Caaisha waxay leedahay nabigu bisha wuu soomi jiray ilaa aan isdhahna bishan maba afurayo waa soonka sunnada bil soon sunnaa la soomay ilaa bisha wuuba dhammaysanoo afuri maayo la yidhaahdo qasab sabti way soo gelaysaa oo 7 beri keliya 7 beri u horreeyay soo geli haddayna ka yar kubay soo dhexgelin xadiid ibn Cabbaasna wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaam bishuu soomi jiray ilaa la is yidhaahda maba afurayo bishan waxaa kaloo ka hor imanaya xadiidkii Caaisha saxiixa ku yeelay nabiga calayhi salaam wuxuu bisha Shacbaan dhammaanteed buu soomi jiray badankeed buu soomi jiray ilaa qaliilan haddaad ma dhihin Caaisha maalmaha sabtida iska ilaalin jiray lama dhihin bishoo dhan hadduu soomo mararka qaarkood ama badankeedba uu soomaayay sabtida qasab way soo gelaysaa waxaa ka mid xadiidka Cabdullaahi ibn Cabbaas Kurayb Ummu Salama u diray Sheekh Albani laftiisuna waa xasan uu leeyahay Tirmidhi warinaya oo uu leeyahay waxaad soo weydiisaa maalmahee nabigu soomi jiray waxay tiri sabtidii axaduu soomi jiray wuxuuna dhihi jiray maalmadoo ciid gaala ah weeyo inaan khilaafaan doonayaa qasdan buu sabtidii axadda u soomi jiray beelada Sheekh Albani raxmatullahi xadiidkan aad u difaacday sabtida kan laftiidu waa xasan buu leeyahay waa sugayaa de sabtida nabigu si gaaraba u soomi jiro gaalan khilaaf dhihi jiray waa ciid gaalo de kan way iska hor imanayaan soonkaana soon farad ahaa ma ahayn axaadiistaas iyo kuwo kaloo lamid ah buu xadiidkani xadiidka siyaamu yowma cashuura iyo siyaamu yowma carafa oon kala qaadin inuu sabti ku aadin inuusan ku aadin buu ka hor imanayaa intaasoo axaadiisoo fara badan in la tuuro oo hal xadiid oo intaasoo khilaafa ku jira looga xishaayay waxaa ka habboon xadiidkan cilad inayna jirin baa sharti ahayd ciladuna sanadka iyo matnigaba waa gasha xadiidkan lafdigan riwaayadan sidan loogu wariyey inuusan sugnayn sanadkiisana inta badan kolba weji lagu sheegay sunnadii oo dhannaba ka hor imanaya saa darteed imaamu maalik wuxuu yidhi kadibun been waay awsaacina wuxuu yidhi war dadka yaa u sheegay waaban aasayno waaban qarinayna yaa u sheegay shaabi zuhrina wuxuu yidhi warkaa ximsaana looga keenay waraan naqaana ma aha abu daawuudna isagu wuxuu leeyahay markii horeba soom sabtida keliya la soomuu ku saabsanaa isagana waa mansuukh buu leeyahay taxaawina waa kale xadiidan faraha badan markuu qayb ka mida tilmaamay xadiid shaad ah weeye oo xadiidoo dhan baal ka maro oo gaar u socda saa darteed xadiidkani matnigiisu cilo iyo shuduudba waa leeyahay xadiidka asaxayana an yakuuna saalima min alcilati waashuduud baa ahayd ama wax taxriim yidhi sheekh albaani ka horreeyo ka sugan tahay anigu ma arag qoomka uu taxaawi ka sheegay karihu qoomka horta muusan magacaabin curfiga taxaawina kariha taxriim iyo karaaho kaleba waa isticmaalaa karaahada aan taxriimka ahayn aad bay ugu badan tahay curfiga isticmaalka abu jacfar ataxaawi kitaabkiisa macaani alaathaar iyo sharx mushkil alaathaar labada markuu kaga hadlayo saa darteed sabtida keligeedna waa la soomi karaa dhib ma laha xadiidkaasina ma sugna haddiiba jumcada lagu darana nas bayba leedahay xadiidkii juwayriye ee abu hurayra baa labadaba jumco iyo sabti in la israacin kara si nasana u sheegaybo wax ishkaal iyo mugdi ma laha dadka aan laga waswaasinin soomkooda waxbana qofku kharaa'ibka iyo wixii khilaaf inuu ka helo oo nusuus badanna dhinacuu iskaga dhiga taa naftu ay jeceshahay qaarkeed ama ku muuqa uu yidhaahda ma wanaagsana wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu